doorashada kursiga hab 138 ayaa halkan lagu soo gabagabeeyay iyadoo 86 ergey oo halkan ku sugnayd ay hab gacantaaga ugu codeeyeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inuu noqdo xildhibaanka afarta sano ee soo socota ku fadhin doona kursigan musharaxadii la tartamaysay ee Naciima Xuseen ayaa ka tanaasushay kahor inta uu tartanka bilaaban iyadoo oo sheegtay inuu tanaasushay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame anigoo ah Naciima Xuseen Cali ma tartamayo kursiga 138 waan ka tanaasulay codsigii aan weydiistay markii aan arkay in yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qofka kaliya ee buuxin kara matalaadda dhabta ah ee kursigan iscasilaadda Naciima kadib waxa gudigu uu ka codsaday ergadu inay hab gacantaaga ugu codeeyaan waxaana dhammaan ergadii goobta ku sugnayd oo ahayd 86 ay ugu codeeyeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu noqdo xildhibaanka soo socda ee kursiga 138 bismillaahir rahmaanir rahiim taray waa soo tiriyay koonka wuxuu ahaa 186 dhammaan ergadu way u codeysay sidaa daraadeed kursiga 138 waxaa ku guuleeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhinaciisa u mahad celiyay dadkii u codeeyay isagoo sheegay in uu kursigan ugu shaqayn doono dadkii lahaa xubnaha guddiga FNR xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ergada musharaxiinta kale iyo korjoogtada intaba iyo hay'adaha amniga dhammaantii waan salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad uga mahadcelinayaa ergada ii doortay inay codkooda siiyaan waxaan kaloo mahadcelinayaa guddiga doorashada iyo martisoonka ka soo qayb galay hay'adaha ammaanka waxaan rajaynayaa guul sidoo kale waxaa la filayaa goordhow inay halkan ka dhacdo doorashada 3 kale oo kursi waxaana ka mid ah Cabdullaahi Aadan Kulane oo u tartamaya kursiga 40 iyo sidoo kale 2 kursi oo kale iyaguna doorashadooda si weyn loo sugayo dalsan ayaad kala socon doontaan ee isha ku hay oo Yuusuf Cabdi Shir oo ka soo hadlay Dhuusamareeb